saaka subaxnimadii hore oo kacdoon shacab ka bilaabmay jamhuuriyadda Jabuuti halkaasay isugu soo baxeen shacab aad u tiro badan oo ka gadoodsan kali talisnimada iyo hagardaamada Ismaaciil Cumar Geelle ku hayo shacabkaas oo ku dhawaaqay kelmado ay kamid ahaayeen Ismaaciil Hadhaco isla daqiiqada gudahood waxaa shacabka rasaas nool adeegsaday oo goobta soo gaaray ciidamada amniga iyadoo in badan xabsiga loo taxaabay halkaas oo jidil loogu geystay sida wararku noo xaqiijinayaan dhimashada ayaa iyana kor u dhaaftay 70 dhaawaca oo isna tiro beelay sidoo kalena waxaa la mamnuucay in warbaahintu ka muuqato qoobtii lagu dulminayay shacabka gadoodsan madaxweyne Geelle oo xilka hayay in ka badan 22 sano ayaa dulmi badan oo ka dhana xuquuqda aadanaha u geystay shacabka jamhuuriyadda Hadday dhagaha